اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu horeyn waa idin salaamaya ana idinku bogaadinaya inaa wax baranaysaan. marka labaad waxaan isku dayayaa inaan xadiis ka mid ah xadiistii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga soo arooriyay imaam al-Bukhari fi saxiixi uu ku sheegay wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nicmataani maqbuunun fiihima kathiirun min annaas الصحة والفراغ. نبغى نقول عليه الصلاة والسلام لبن نعمة هي شرطوت الماما يودتك انتي سبدني أي كو خسارين مغبون كوح على هذا قفك مركو وحيب سنة يا أما وحيبنا يلا دعوه يعني وقفان وحن وسيتو قيمة هو ذا قرنين أما السوق قيمه سقرنين مركا هدو حسوي سنة يا والله خيامية oo wixii hanti ka badan wixii iibsaday baa laga qaadaa hadduu isagu wax iibinayana waa la khiyaameeyayo hanti ka yar wixii uu iibinayay baa la siiyaa marka qofka waxa la yiraahdaa waa maqbuun. nabigu wuxuu leeyahay laba nimca jiro dadka intooda badan ay maqbuunin yihiin ay kuwa khasaare ka mid yihiin. labada nimca wuxuu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam وقلت المامينيين الصحة والفراغ وعافمات قبكة هي فراغ وقتك ديراتك وقفك هايستو عافماتكو والنمعاد وين لكن ضدك هايستا ما دريمان هذا ساكا مركات صوت توستيوات عافمات قبطة ما تري ساكا مركات كعضي الحمد لله ورساكا وعافمات قبطة ما اللي يحنون ميسو ما حاسوسني واسكن ولا شيء عادي هاي لكن هدين لو تقعد اخترك هدين وتقنه ضدك تشيفه حتى مليونير هتشيفه بليونير هتشيفه هدين انا ما انت نلاش ما حد يقول عاش هاي حورنا يومنا نعرف هذا وحورنا قاله هيستو دن وحو قليه انه كبخيو انه عافماد هلو haddii kali ku xanuunta wadna ku xanuuna calool ku xanuuna la yiraahdo dunida dabadeeda waxa jooga khabiir professor oo khatar ku ah oo xanuunada daweeya waxa laaliya wuxuu hanti haysto uu ku bixinayaa si uu maxay uu dawo. idan waxa qiimaha inta leeg jooga ee qofku inuu hantidiisa oo dhan ku bixinayo marka aad adigu haysato haddana aanad ogeyn soo doqonnimo maaha soo qof khasaaray ma tihid ilaa wixii adigu agtaada yaala wad caafimaad qabtaa waana wixii ugu qaalisanaa baa lagu tilmaamay inuu ka mid yahay. waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiiska lagu tilmaamayaaba ninka subaxii soo toosa gurigiisa ama reerkooda isagoo caafimaad qaba la jooga isagoo nabad qaba la jooga jidhkiisuna caafimaad qabo maalintaana wuxuu cuno haysto ka dunida waa lagu soo ururiyay buu nabigu yiri dunidu ba kaasay ku dhantay way inta ka badan lama helo. waxa markaa isweydiinta leh waxa weeyaan caafimaadku waa nicmo ma ka faa'iideyna intaanu caafimaadka qabno wax ma qabsanna. nicmada labaad ee nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay inay tahay al-firaaq waa waqtiga dheeraadka ah waqtiga firaaqada ah waqtiga aanad mashquulka ahayn. noloshaada markaad eegto ninka dhalinyarada ah waa qofka ugu firaaqa badan waayo xidhiidhka uu dadka la leeyahay baa yar. qofka weyne markuu soo tooso u shaqo tago intaasoo brograamo karaa loo sheegayaa reerkiiba caynkana reer hebel baa waxaan ku dhaceen qofkan baa dhibtan qabaa ciidan baad u baahantay inaad soo booqato cid buu soo dhaweynayaa cid buu dad badan buu ku xidhan yahay waqtigiisoo dhan dad baa iska leh ninka yarise waqtigiisoo dhan isaga iska leh cid lama laha. sida awgeed hadda arday baa tihiin soo maaha imise saacadood baa iskuulka joogtaan يا 6 ساعة 5 ساعة ما لها صماها. اوكي
haddaynu idhaahno 6 saacadood baad joogtaa 6 ba ka soo qaad imisa soo haray 24 saacadood 18 6 saacadood baad magaca arday kula baxday 18 kale maxaad kula baxaysaa aan idhaahno 8 na dee horta hurdaad u baahantay waad hurdaa maxaa soo haray 10 kale baan idhaahna 2 saacadoodna salaada iyo cunada iyo musqusha iyo meelahaas ku baxaan maxaa soo haray ya 8 maxaa qabataan su'aashu waxa weeyaan inta aad magaca ardayga ku haysato waxa ka badan waqtiga kale aad haysato inta mid waa boodbooda mid suuq iska jooga koor hadii lagu bixiyo suuq joogi adiga marka lagu dhaam maxaad qabataa waxaad tiraahdaa arday baan ahay saaka ma laakiin waa 6 saacadood waxaad ardaytay haddaynu idhaahno ninkan arday ma waa suuq jooga ka waran ilaa 8 saacadood buu suuqa iyo meelahan warwareega kubadda daawada suuqa iska orda halkan waa 8 saacadood darsiga aan maanta idin leeyahay waxa weeyaan nolosha gebigeeduba oo waqtiga adduunka lagu sheegaya waa intaad waqti haysato adduunyadu way soo jirtay waqti dambana waa sii jiri doontaa laakiin adiga waxaas shaqadaada maaha adiga waxa laga yaabaa inaad joogto 60 ilaa 70 sanadood meelaha adiga adduunkaagu waa inta dadka kale adduunkiisa waxba kama gelin adiga adduunkaagu waa maanta dalatay ilaa iyo maxay intaad ka dhibanayso waa 60 sanadood 60 sanadood sidaad uga faa'iideysatay sidaad wax u qabsatay dunida wax maqashaan hebel waa professor hebel waa khabiir hebel waa caalim hebel waa caynkan dadka miyuu ka waqti badnaa maya 24 saacadood qof walba la siiyay buu haystay miyuu ka cimri dheera maya 60 ama 70 saa jiray muxuu kaga gadisay maxaa hadda magacan u yeelay waxa magaca kan u yeelay waqtigu sidoo uga faa'iideystay ba ka gadisnaa kan kale sidoo uga faa'iideystay waxa u dhaxeeyay waa inta qofna waqtigiisii ayuu wax macna la galiyay waxa adduunka ama macna kule ama aakhira macna kule galiyay qofna waqtigiisii ayuu wuxuu ku lumiyay soo wareeg shaaha cab markale soo wareeg TV-ga daawo sheeke halkan fadhiiso inta maxaa ka dhalanaya marka waxa ka dhalanaya cimrigaagii qayb kamida oo baaba'ay markaanu idhaahno waa 8 saacadood baynu dhiba soo haray aad waxba qabanin saaka maaha 8 saacadood 24 saacadood imse ka yihiin waa 3 meelood oo meel waa 3 sideedaad 24 saacadood ka waran cimrigaaga 60 sano haddii lagu yiraahdo 20 tuur ilaa 8 saacadood cimrigaaga waxay uga dhigantaa imisa 20 bay uga dhigantaa hadaynu idhaahno 60 baad jiraysay 3 20aad 60 ku weeyaan haddii lagu yiraahdo 40 qaado oo dhimo waa kugu adagtay qof walba waa ku adagtay dee hadda maxaad u dilaysaa adigiiba waxaad leedahay waxaan qabtaan garan waayo 20 sanadood oo cimrigayga ka mid ah rabaa inuu cidla ku baxo 20 sanadood oo cimrigayga ka mid ah ayaan rabaa inuu cidla ku baxo 6 sanadood waa ama ardayha xataa marka dambe aad shaqayso 6 sanadood baad soo shaqaynaysaa inta kale maxaa la qabanayaa 8 waad saacaday 2 saacadoodna cunno iyo salaad iyo intan bay kaaga baxday waa 8 saacadood oo noloshaada waxba ku qiimo lahayn إلهنا وحو قرآن كلايه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت بالي هي من أمور الدنيا مركات صو فارغ ده شقوين كلا صور ما يسطو فارغب فانصب شقد هذا كلام مركات صور ما يسطو دال بالي إلهي عبادتي سكو دال حسك فريسان إنه شقدي وين دميان تطرادو مالها فريسان بالي فانصب في عبادة الله وإلى ربك فارغب إلهي أكتي سوحيها هنا رادعي وباددون سيدو قيد النبي عليه الصلاة والسلام وحينات المامية وحاني والله بالنعمو وأكتين أينكو خساري والله بالنعمو وأين سيدي الله بهنا وقفا إيدين إن لقفا إيدي وحو النبي وكوت المامي عليه الصلاة والسلام هديبو يري إذنكو قعنتكو هي فصيلة ذا وحا الله يدادا قيد تمرت كير الله أبقى عليه
timirta marka la beero marka hore geed timireedka yar baa la beeraa kadibna waa la abqaalaa geedka yar timirta la abqaalaya fasiila la yiraahdaa wuxuu nabigu yiri adigoo fasiila gacanta ku haya hadduu qiyaamo xagaa ka soo dhaco aduu maxaad yeeli lahayd lagu yiraahdo taasoo damdamlo qiyaami baa dhacaya qiyaami dhacaya kan iska tuuru madoolan lahayd Soomaa wuxuu nabigu leeyahay haddaad ka gaadhsiin karta inta aan qiyaamuhu dhicin inaad beerto beer oo yaa cunaya ila qiyaami baa ku dhacaya aduu beeristiisa baad ajarkaaga ku leedahay shaqadaadii waad qabatay cid cunaysa adiga kuma saara adigu waxa laga xadiidku waxa uu tilmaamayaa waqtigaaga in yarna inaanu lumin in yar oo waqtigaaga ka midi inaanay lumin waddankeena iyo dalkeena iyo dadkeena waxaynu leenahay dhib badan baa jirta dhibta jirta waxa weeyaan waxaynu garan weynay waxaynu qabanno dunida dadka ku nool oo dhame iyo ummanba horumaraya waxa la sheegay oo dhame saddex shay bay cid waliba haysataa waa dhul iyo dad iyo waqti saddexdaa shay siday uga shaqaystaan ayuunba horumarku ku xidhan yahay oo ah qofkooda sida loo tababaree loo nooleeyo looga shaqeeyo dhulkooda sida looga shaqaysto iyo waqtigooda sida ay u isticmaalaan ummad waliba waa intaas oo inta ay haysataa intiina waynu haysanaa laakiin intii baynu waxba u garan weynay dhulku waa sidii ilaahay u dhigay waxba kale kumaynan dana dhagxantan baynu ka taagtaagnaynu guryaha u bixinay waxa kale aynu ka qabanay ma jiro xoolaha iska sii daynaa haddii ilaahay u beerana waa aragnaa haddii kalena waa ka wax kale kama beerano waxba kuma qabsano waqtigana waxba kuma fallo qof waqtigiisu qiimo ku jooga wuu inugu yariyay waqtigu waa hantida u weyn waayo waa noloshaba waa isaga waa hanti aan kaydka gelin lacag dheeraad aad haysato meel baad dhiganaysaa waqti dheeraad kayd ma galo waa qasab inaad isticmaasho waa hanti aan bedel aqbalin ninka inoogu lacag badan leh hadduu sidaa saacad dheeraad iibsan kari maayo ma gasho lama bedel kuma heli kartid xog iyo xoolatoona kuma soo heli kartid waa hanti mar kasta aad u baahantay inaad isticmaasho idan caqliga ugu fiicani waxa weeyaan markaa hantidaas sidaan uga faa'iideeyaa maximumka sida ugu badan aan uga faa'iideysan karaa sidee bay ku dhici kartaa hantidaas sida aad uga faa'iideysataa adduunkaaguna ku xidhan yahay aakhiradaaduna ku xidhantay adduunkaaga iyo magacaaga iyo waxqabadkaagu wuxuu ku xidhan yahay hantidaasi waqtiga ah si aad uga faa'iideyso aakhiradaaduna waxay ku xidhan tahay hantidaasi waqtiga ah sidaad uga faa'iideyso sida awgeed dhallinyaronimadu waa marka uu qofku u caafimaad badan yahay waa marka uu ugu waqti badan yahay waa marka nolosha waxa ku xeerana dhibta ku haya ugu yar yihiin laakiin haddaan waqtiga ka faa'iideyn waa markuu ugu doqonnimo badan yahay waayo hadhow markaad weynaato ayuunbaad calaacali doontaa odhan doontaa maxaa waqti dhaafay haddaan berigii waxaan samayn lahaa haddaan waxaan samayn lahaa tusaale ahaan imisaa qur-aanka qaybsan bal gacanta taaga yaa qur-aan qaybsan waa idinku jiraa waa imisa nin waa dhowr qof soo maaha tobaneeyo su-aasheen isweydiinay waxa weeyaan tobankaasi miyay naga waqti badnaayeen tobankaasi miyay naga waqti badnaayeen waa maya wax kaloo dheeraad oo aanay iyagu qaban oo inagu aynu qabannay ma jirtaa oo aynu idhaahno beddelka iyagu qur-aanka akhrinayaan innaguna xagga maanu ka soo saarray waxaan kalaanu qabannay waa ma jirto yacni waxaynu odhan karnaa tobankaasi waxay waqtigii uga faa'iidaysteen si aynan inagu uga faa'iidaysanin waayo maanta sideeddaa saacadood ee dheeraadka aad haysatay aan kuu sheegay haddaad saacad qur-aanka akhrido waxaa la hubaa waqti yar inaad qur-aanka ku dhammaynayso haddaad saacad qur-aan akhrido haddaba waqtiga inay ka faa'iidaysataan maxay u baahantay waqtigaasi hadduu dayacmo آخر كون نارتقليا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير بإله إليه وأن أنا ندعم رسينين مدوان توبة وحكوان توبة وقت ميدن هلين وهلا
aakhira waxa ugu horeeya la isweydiiyey waxa ka mid ah buu nabigu yidhi 4 shay afarta maxaa ka mid ah cumrigii waxaad ku bixisay iyo dhallinyaranimadii waxaad ku bixisay dhallinyaranimadu waa cumriga qayb ka mid ah oo ka khatarsan cumriga intiisa kale markaas iyada su'aal gaar ah laga bixiyay iyadoo cumriga oo dhan lagu weydiinayo ayaa haddana qaybtii dhallinyaranimada si gaar ah lagu sii weydiinaya si aad waqtiga uga faa'iidaysato maxaad u baahantay haddaynu isla garanno waqtigu qiimaha uu kugu joogo iyo waxaan aad beerdaraynaysaa tv-ga ku daawanaysa ama suuqa la wareegaysa ama meelaha la taagtaagantay ama aad hadalka iyo turorogta aan waxba ka jirin aad u shubaysaa ee waqtigaaga aad ku dilaysa waa cimrigaaga qayb ka mid oo aad leedahay uma baahnay ha khasaarto cimrigaaga qayb ka mid ah oo aad leedahay uma baahnay intaan ha iska lunto sidee looga faa'iideeyaa waqtiga waxa looga faa'iideeyaa kow وين ديالتان قف والله إذا كم يبقى قائمة الأعمال to do list قائمة الأعمال هو محي ما أنت واحد ربطين تقبضته أما التطبيقات كم واحد ربطين تقبضته أما اللي حدا بلوده صوص عطا واحد ربطين تقبضته أما السنة كم صوص عطا واحد ربطين تقبضته تصالح وحنري نحوها بيقول يرادك هي waxaan rabaa baan idin 60 bilood soo socda naxwo gebigiiba af carabi inaan meel iska dhigo waad dhigi kartaa naxwo af carabi 60 bilood soo socda inaan meel iska dhigo waxaan u baahanay baan leeyahay maalin kasta inaan saacad naxwo daraaseeyo maalin kasta hal saaca oo xageeya masaajid ku daraasee gurigaaga ku daraasee internetka ka daraasee meesha doonaysa aad ka daraasee hal saac waxaan u baahanay baan leeyahay 2-3 kitaab inaan dhameeyo haddaan kitaabka 1-2-3 dhameeyo naxwo meel baan ku hubinaya 3 kitaab noloshaada mid saacad ka waysa 6 bilood oo aad waqtiga ku bixiso idan waa inaan sameeyaa to do list waxa aan rabo inaan qabto saacada waa inaan wax akhriyaa saacada waa inaan quraanka qaybaa saacada waa inaan waxaa sameeyo waxaagii baad to do list waxyaabaad u baahantahay inaad qabato baad qoraysa qaa'imatu al-a'maal weeyaan marka labaadna jadwal ayaad samaynaysa saad waqtiga u kala siisiinaysa acmaashii ma sheegtay kadibna waa jadwal saad u samaynaysa usbuucan waxaad qaban lahayd bishan waxaad qaban lahayd 2 bilood oo soo socda waxaad qaban lahayd marka saddexaad waxaad u baahan tahay al-awlawiyaat priority siday u kala mudan yihiin nolosha ma sinna qofba waxba uu mudan inuu hadda qabto oo mustaqbalkiisa dhow uu ku xidhan yahay saad u kala horumarin lahayd tartiib الحياة kadibna inaha haddaad samayso waxa fududaanaya waqtigaagu inuu macno yeesho oo aad wax ku qabsato waqtigaagu inuu macno yeesho oo wax ku qabsato waxa fududaanaya inaad qof caalima noqoto waxa fududaanaya inaad qof mutadayyin noqoto waxa fududaanaya inaad qof waalidkii wax tara noqoto waxa fududaanaya qof dalkiisa iyo dadkiisa wax tara inaad noqoto wax waliba way fududaanaya nolosha laakiin haddaanay nolosha ku lahayn hadafba meel aad u socotaba iska noolown shalayba wadigii soo toosaysa kana soo toos بريتنا دوتي شالله يوكلو أنجلدي هو يمرك كوسي سعون سكول كيل سويج جريس كصائق هدونا ملاها جيس كبود بدعة ونصيحه بري صادم بساكون هذا نلاش النوع كان وطوح بتريميس بل نلاش ديرات بتكتي ولا إثبات كتي وين النقطة قف نلاش وحكسو كردينية قف سجو وحكرر سنية آخرية دومبا قف ضدك وكيمي magaciyo maamus iyo wax tarba u ah waalidkii ku tabacay dad baa kugu tabaca habeen iyo maalinba hooyadaa imsada shaqada gashaa Soomaalidu deynta badan waxay yiraahdaan aba shaqeeyay hooyo ma shaqeyso saxiga ma dad tiraado xaafadda ayaa shaqeeyay waxa lagu odhanayaa aab waxa uu ka shaqeeyaa ama dawladda ama shirkadda macaynka hooyana guriga iska joogta war hooyo labada shaqeysa hooyo shanta subaxnimo ay kacdaa markaasay guriga idin hagaajaysaa markaasay quraacda karisaa markaasay dharka ku hagaajaysaa markaas adiga iyo aababa shaqo tagtaan
markaasaa intaa maqantin qadada laydin si kariyaa markaasaa markaad timaadaan guriga laydin hagaay 5 subaxnimo shaqaday bilowdo 12 habeenimo ka baxdaa oo 7 maalmoodba ah oo sanadkoo dhan ah laakiin qofka 6 saacadood shaqo taga wuxuu leeyahay hebel baa shaqeeya qoladan guriga joogta iyagoo iska jooga baa haysataan waxaan ka dan leeyahay hooyo waxay u daashay aaba u daalay waa in adiga qof laga dhigo waa inaad mustaqbal yeelato adiga qofka laga dhigay marka hadda dabaduun fadhida ka warano sheekeynaysid ama ku badaawanaysa Manchester baa Liverpool ka badisay Manchester iyo Liverpool waxa ka galay kii badiya midna reerkiina ma midna wax kuma soo wato hebel ballaad fiicnaa iyo hebel gool ku dhaliyay markaysa oo maxaa adiga macna kuugu jira wax ku qiimo leh nolosha inaad qabato aniga marka kelmadan maanta idinku yimi waxa weeyaan xoolaha cuno oo seexdo oo soo toosay sida xoolaha u noolaanina xoolaha ayaa waxna cuna seexdana subax dambena la sii daayaa daaq taga soo noqdo seexda sidii xoolaha u noolaanina noqda dad nolosha tan qiimo ku leh qiimo waxaad ku yeelan kartaa labada nicmo oo nicmooyinka ugu waaweyn ee bini'aadamku haysataan nicmadii caafimaadka iyo nicmadii firaaqada waxa aad iskuulka joogtaa waa dhowrkan bilood ama waa dhowrkan saacadood 5-6 saacadood baad joogtaa noloshaadii inta kale macna u samee noloshaadoo dhan ha odhan arday baan ahay waa 6 saacadood waxaad ardaytay haddaad arday dhaba tahay dee dhowr iyo 10 saacadood ka dhig markaa anana ninkan waa arday 6 iskuulku tagaa 3 private ku tagaa ama halkan buu tagaa intan masaajid ku tagaa internetku wax ka dhigtaa inta waxa markaas aad ardaytay laakiin 6 saacadood baan arday 8 saacadoodna cidlaan fadhiya de maaha magaca ardaynimadaad ceebaynaysaa arday dhaba markaa ma tihid waxaan idinka rabaa markaa maanta waxa weeyaan maanta laga bilaabo qof waliba inuu yeesho hadaf uu u socdo meel uu rabo inuu gaadho wuxuu qabanayo oo u qoran time iyo jadwal uu ku qabanayo oo uu garanayo wax walba waqtigu qaban lahaa iyo siday u kala muhiimsan yihiin oo uu kala horeysiyo midna waan idin sheegayaa wax walba talaabada ugu horeysa ugu adag quraanka markaad bilaabaysaa adag waxbarashada markaad bilaabaysaa adag wax walba bini'aadamku qabanayo talaabada ugu horeysa adag talaabada ugu horeysa nafta ku sheekayn shaydaan baa ku sheekayn saaxiib bashar badan oo meelahan ka yimid baa ku sheekayn wax badan baa isku day inay ku jeedeen laakiin talaabada hore haddaad adkaysato wiiga hore labada wiiga hore bisha hore labada bilood hore haddaad adkaysato marka dambe nolol caadi ku noqonaysa noloshaada caadiga ah ee aad qabato ay ku noqonaysa imka nolosha caadiga waxa lagaaga dhigay iskuulka inaad dhigato dabeetana qadaysay kadibna yara seexatay hadhowna suuqa iska gashid mid kubada ciyaariya mid sheekeeyo mid meelaha boodboodaba ilaa ay inta caawa laga gaadhay inaad seexanayso taas lagaaga dhigay routine life inuu noqdo noloshaada caadiga ah taa intaad ka baxdo noloshaada hadaf u yeel hadda talaabada hore talaabsataan inta dambana waa qabanaysaan haddaad sidaa noqotaanna waalidkaa waad farax gelinaysa macalinkaagii wax kuu dhigaya waad farax gelinaysa dadkaagii iyo qaraabadaadii waad farax gelinaysa jaarkaagu waa kugu farx haddaad laakiin cagsiga tahay jaarku kaa seexan waayaan ood meelaha u fadhiisato sheekayso kolba reer derbigii fadhiisato ama laba kubad yaryar iyo daawatid nolosha qiimo kuma lihid marka waxaan ku soo koobayaa durustiinni baa idin sugaysee bal xadiidka nabiga xoog u xasuusta labadaa nicmo ee dadku uu ku khasaaro adigu ma kuwa maqbuunka ah waxay sitaan bilaashka lagaga qaataa baa tahay mise nin xariif ah oo markuu wax gadanayo iyo markuu wax gadayaba isku dayaya inuu profit inuu sameeyo macaash baa tahay waa labadaa midoon waxa aad haysaa waa nicmada caafimaadka iyo waqtiga ee intaad uga faa'iideyn mise waad ku khasaari doontaa waxaan ilaahay ka rajaynayaa kuwa ka faa'iideeya inaan noqotaan akhriya adduunba ilaahay waxaan idin barayaa subxaanahu wa tacaala inuu wanaagga idin haleeshiiyo waxa aakhiradiinna iyo adduunkiinaba ku hagaagayo inuu idin haleeshiiyo sala allahuma calaa muxamadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin